halkaani waa godadkii gabaadka iyo harsiga u ahaa arxaanlawayaasha khawaarijta gobolkooda dhacay ee ku dhumaaleysan jiray deegaanada Qaycad, Tuulo Sanguuni, Bacadweyn, Camaare iyo sidoo kale Shabeelow oo ka wada tirsan koonfurta gobolka Mudug. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaanda hooska Danab oo kaashanaya daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, dadka deegaanka ee naftooda u horay difaaca dalka, la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale dabargoynta khawaarijta gobolkooda dhacay Al-Shabaab ayaa howlgal 4 maalin oo xiriir qaatay. Waxay ka saareen godadkii ugu badnaa oo ku yaala duleedka koonfureed magaalada Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug. Howlgalkan wada jirka ay u fuliyeen ciidamada xoogga dalka, daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka waxaa lagu dilay in ka badan 200 oo isugu jiray horjoogayaal, dhagarqabayaal ka tirsanaa khawaarijta gobolkooda dhacay ee weli ku dhumaaleysanaya deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Galmudug ay dileen. Howlgal muddo bil qaatay ayaa argagixisada waxay ku waayeen degmada Xarar Dheer ee koonfurta gobolka Mudug oo ahayd goobtii 15 sano ee la soo dhaafay khawaarijta ay ku dhumaaleysanayeen. sidaas oo kale waxay waayeen deegaano muhiim u ahaa khawaarijta arxanka daran ee gobolkooda dhacay Al-Shabaab oo ay ahayd goobihii ugu badnaa oo ay ku dhumaaleysan jireen. sidaas oo kale ciidamada wada jirka ayaa argagixisada ka saaray deegaanada Doonlaaye, Qaycad, Tuulo Sanguuni iyo sidoo kale tuulooyin badan oo miya u dhaxeeya deegaanada Caad, Camaara, Bacadweyn iyo Qaycad. Saraakiisha hogaaminaysay howlgalkan wada jirka ah oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka, daraawiishta Galmudug iyo sidoo kale nafta-hurayaasha deegaanka ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kula hadlay saldhigyadii laga saaray khawaarijta gobolkooda dhacay Al-Shabaab. meeshaan waxaan ku soo aragnay hadda waxyaalo ay kutuba ku sheegayaan laakiin kutub aan ahayn oo dadka islaamka ay ku qaldeen. hadda xadiis nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ka hadlay oo uga hadlayo markii neefka la biraynayo nabigeena waa asagii lahaa ahadkiin ha afaysto balkii ii sheeg mididiisa qofku shaygu biraynayo neefku biraynayo ha u raaxiyo waxay ka dhigeen meeshaas qofka la biraynayo in diinta islaamka been ka sheegaysa zaid ku daliila macnaha nabigeena wuxuu yiri ahadkiin ha afaysto birtiisa mididiisa oo wax ku gubahayo shaygu gubaha oo bireenayaan ha u raaxiyo waxay ka dhigeen dadkiiba ka dhigeen waana nabigeena sallallahu alayhi wasallam neefka la bireenayo ayuu ula jeeday marka in diinta islaamka been ka sheegaysa kugu daliila wax yara ka haray wax yarna hadii ilaahay ma ku dari doona waxa soo haray sida shiiqo kale iyo dadka ma u jeeda halgankan aadka uga qayb qaatay aadaan ugu mahadcelinaynaa shiiq sida sharafta leh oo halgankan ama ciidamada ula daba joogtay sidaadka ama nidaam meeshaan nimanka waa nafla caari raashinkii waa ka dhamaaday sonkortii waa ka dhamaadeen biyihii way ka dhamaadeen naf bay taagan yihiin nimankan waxa weeye adduunka way ka afjarmeen Galmudugna waa uga dhamaatay halkaan waxa weeye goobtii laga qabsaday qolada khawaarijta ay ciidanka daraawiishta iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan iyo ciidanka deegaanka dagaalka ku galeen waa rugii ay fadhin jireen iyo meeshii ay ka soo duuli jireen muslimka ka dhimaateen jireen dadka xoolihiisa ku qalan jireen waxaan ka sifaynay Qaycad iyo Bacadweyn iyo ilaa Camaara inta u dhaxaysa khawaarijta waa laga wareegay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka iyo ciidanka daraawiishta gacanta ku haya. geedahan iyo ciidan oo sanado ay ku amartaagleynayeen khawaarijta gobolkooda dhacay Al-Shabaab ayna ku dhibaateynayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku noolaa deegaanada Qaycad, Camaara iyo sidoo kale magaalada Bacadweyn ee koonfurta gobolka Mudug. iminka waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kumaanda hooska Danab, daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka. taliyaha saldhigga booliiska magaalada Bejeele ee koonfurta gobolka Mudug, Axmed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay dadkii halkan degnaa inay dib ugu soo laabtaan guryahooda ayna garab istaagaan ciidamada xoogga dalka sidaas oo kale qayb ka qaataan halganka dalka looga saarayo khawaarijta arxanka daran ee gobolkooda dhacay Al-Shabaab. waxaan leenahay marka wadankiina idinkaas kale idinka haysa kale dega cabsi gelinta baadaba wax ku bixinina waxa shabaab ku biilaysiin idinku bariis kala baxa ilaahay baa ugu dhawaanaysiin annaguna way garab taaganahay waxa kale oo mahadcelinayaa sheekha lafdhabarka waa Sheekh Cabdimanaan oo dagaalkan lafdhabar u ah iyo saraakiisha iyo culimada kale ayakana aad baan ugu mahadcelinayaa waxa kale oo mahadcelinayaa warbaahinta haday tahay midda qaranka midda localka midda madaxa banaan midda heer state ayadana waa mahadcelinaynaa waxaan leenahay intaas waxa ku sii darayaa meeshaan meel dib looga noqdo ma leh shacabka ku neeyay meel ciidanka tayo dib uga laabtaan dib u noqosho ma jirto hor u socod ma ahane
dadka deegaanka geedaha ku gambadanaya soo baxan leenahay Baasha Cali warbaahinta qaranka Qaycad.